magacaygu waa darsaaq beejkaad iga daawanaysan ina dulqaad weyne waxaynu maanta falanqeynaynaa xalqadii labaad ee ku salaysnayd tuugada internetka ama hakarka qofba siduu u yaqaano daawade maxaa niyadaada ku soo dhaco markii aad maqasho tuugada internetka ama hakarka waa su-aal ku jirtay muuqaalkii hore balse maanta sheekadaynu way ka duwan tahay ila soco daawada ninka aynu rabno inaynu falanqeyno ayaanu baranaynaa magaciisa waxaa la yidhahda German Haman wuxuu dhashay 1985 bishii 8 wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka qaasatan gobol la yidhahda Chicago wuxuu kusoo barbaaray Glendale Heights Illinois waxaa la dhashay wiil isaga lama taan ahaa oo la yidhahda Johnson balse Haman wuxuu ahaa nin yaraantiisa jeclaa codinka isagoo 8 jirna wuxuu dhisay video game isagoo isticmaalaya Keybase 13 jir markuu ahaana wuxuu dhisay qayb ka mid ah database oo ah meel xogta lagu keydiyo waxbarashadiisa wuxuu kusoo qaatay iskuul yidhahda Glenbow East High School kaasoo u soo hayay sumcad aad u weyn sababtan waxay ahayd iskuullada ku yaala gobolka dhan ayaa waxaa loo qaban jiray tartan aqooneed kuwaasoo ardayda lagu tartansiinaya sayniska iyo computer programmingka balse isaga labadaba wuxuu ka keenay kaalinta koowaad sidaas ayuu sumcadda iskuulkiisana kor ugu qaaday waxyaalaha kaloo la yaabka lahaa uu lahaa waxaa ka mid ahaa isagoo high school ku jira ayuu bilaabay inuu u ololeeyo nabadda xilligaasna wuxuu kasoo horjeeday duulitaankii ciraaq lagu duulay wargeys ayuu samaystay warqadaha gurigiisa kusoo daawacana wuxuu u qaybin jiray ardayda maamulaha iskuulka Glenbow East High School ayaa sheegay inuu Haman yahay nin ka weyn ardayda xagga maskaxda Haman markii dugsiga sare uu dhameeyay wuxuu aasaasay mareegto ama meel dadka wax lagu baro taasoo la oran jiray xogtaada wuxuu kaloo sheegay in meesha uu dadka wax ku baraya hakanka ay tahay meel uu ku ilaalin doono dadka xogtooda iyo shakhsiyadooda sheegayna inuu ilaalin doono ama uu dhoori doono xuquuqda waxbarashada ay dadku ay siinayaan Haman ayaa jeclaystay inuu waxbarashada sii wato wuxuuna buuxiyay jaamacad waa la aqbalay 2004 sanadkiisa koowaad isagoo ku jira waxaa soo baxday faa'iido la yaab leh cillad ayaa waxay ku timid waaxda amniga ee kombiyuutarada sayniska wuxuuna u tegay maamulayaasha waaxdaas wuxuuna u sheegay ama uu soo bandhigay inay hagaajin karaan cilladda meesha ku timid isagoo sheegay xitaa inay arrintan ay shaqo u noqon karto ardayda jaamacadda balse gudoomiyii waaxda ayaa lagu yeeray ugu dambeyntiin waxaa lala hadlay jaamacadiisii waxaana fadhi dheer kadib la go'aamiyey in uu isaga jaamacaddaba kusoo laaban karin sanadka labaad taas oo ka dhigan in looga shakiyey qalqalka ku yimid waaxdaas ama cilladda ku timid meeshaas Haman sidaas ayuu waxbarashadiisa ku waayay balse isaga arrintii sida uga maharin wuxuu bilaabay ololo dowladda looga soo horjeedo isaga iyo arday kale arrintii markay bannaanka u soo wada baxayn waxaa soo baxay kuwo kale isaga ka soo horjeedo balse ficilka la yaab kale uu sameeyey waxaa ahayd kuwii ka soo horjeeday ee dadka kale ahaa wuxuu u dhacay kaararkooda bankiga arrintaas cid ku soo dacweysay isaga maysan jirin balse isaga ayaa afkiisa ka qartay sheegayna inuu isaga dembiga uu geystay waxaa lagu xukumay 2 sano wuxuuna xirnaa 18 bilood Haman markuu xabsiga ka soo baxay wuxuu ka soo qaaday xagjirnimo iyo ku fogaansho xagga bidixda ah balse wuxuu go'aansaday inuu ku laabtay shaqadiisii ahayd meesha uu aasaasay mareegtii ahayd xogtaada balse wuxuu iloobay shuruucda isaga uu dejistay oo ahayd qofkii dembi gala ama qofkii la qabtay inuusan meeshan dib ugu soo laabanin isla sharciyadii uu dejiyey ayay isaga qabteen sidaas ayaana bannaanka looga dhigay shaqadiisii isagu u aasaastay Haman wuxuu bilaabay inuu shaqo caadiya uu ka shaqeeyo 2010 wuxuu bilaabay inuu half time ka shaqeeyo ama part time qofba sida uu yaqaano company la yiraahdo Romi Company kuwaas oo ahaa kuwa qayb ka mid ah dhisa softwareada balse Romi Company madaxdiisii qayb ka mid ah ayaa hadashay waxaana sheegeen inuu Haman yahay nin degan akhlaaqdiisuna fiican tahay kaas oo ay ku sheegeen xitaa inuu saaxiibtinimada qaybta shaqada markii la joogo ku fiican yahay waxayse kaloo raaciyeen in bari wax ka imaanaya isaga aysan aqoon u lahayn warwaakii dambeeya FBI-da ayaa ninkan waxay soo weerareen 2012 Haman way qabteen wayna xireen sababta loo xireen waxay ahayd 2011 bishii 12aad ayuu wuxuu dhacay 60,000 oo kaararka bangiga ay dad leeyihiin iyo lacag gaarayso $700,000 xagga dowladda wuxuu ka dhacay 5 milyan oo email iyo xog ku jirta emailadaas iyo dukumiintiyo qaas ah oo arrimo sida ku jireen balse waxyaalaha la yaab kale waxa ahayd inay dowladda xiratay ay haddana caawinaad weydiisatay sidaas ayuu wuxuuna haddana uga badbaadiyey 300 oo weerar xagga kombiyuutarada 2013 ayaa maxkamad la soo taagay isaga iyo 2 nin oo la shaqeynaysay oo laga kala keenay Ireland iyo UK waxaana lagu xukumay 10 sano 19kii ay ahayd kiiskiisa in dib loo baaro balse arrintaas maysan dhicin oo waxa la go'aamiyay ninkan in waddanka qalqal uu ku yahay amniga waddankana uusan ku fiicneen waxyaalaha FBI-da ku maasatay waxaa ka mid ahaa waxay soo qoreen Twitterkooda waxaynu raadinaynaa nin yaanyurtiisa password ka dhigtay marka barnaamijka gabagabadiisa maadaama aynu soo gaarnay ha noqonin sida Haman oo kale hana ka
ka dhiganin waxyaalaha adiga aad jeceshahay passwordkaaga sababtoo ah dadka hackerka waxay raadiyaan waxyaalaha adiga kugu hareeraysan sida sportska hadaad jeceshahay asxaabtaada sida naagtaada ninkaaga oo kale waana waxyaalaha u fudud keeni kara in xogtaada si degdega loogu gudbo literally waxaa tahay qof kale marka qof kale ha koobiyenin noloshaada barnaamij midkaana lamida intaynu ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo salaam